magacay waa Maxamed Cabdiqaadir Mullah gudoomiyaha Macrifa Nasri and Primary School iyo Macrifa Secondary School waxa aan halkan u soo fariistay caawinta Cabdiraxmaan Cabdifataax Cabdul Nairobi iyo Cabdinuur Cabdifataax Cabdul Nairobi caruurtaas waxa ku dhacay xanuun aad iyo aad u xun oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan rabno Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga ilaaliye annaga iyo caruurteena gabar horena waa uga dhimatay isla xanuunkaas social media ayaad ka aragteen dhakhaatiirta oo cadeynaysa xanuunkaas oo ka waramaysa waa xanuun qofka dhiigiisa ayaa dhamaanaya waxa uu u baahan yahay isbuucii 2 jeer ama 3 jeer in dhiig lagu shubo caruurta waxa la geeyay wadanka Ethiopia waxa la yiri waxba laga ma qaban karo waxa ugu dhow waa dalka Hindiya caruurta hadda isbitaalka ayay yaalaan isbuuc walba waxa lagu shubayaa dhiig waxa aan rabaa inaan fariin u diro dhammaan waalid walba oo ilmo dhalay naxariisi qalbigiisa ay ku jirto inuu caawiyo caruurta wixii karaankiisa sadaqa ayay u tahay macdiratan ila rabbigan ayaan uga cudurdaaranaynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa ilaahay dartiis ayaan u caawinaynaa xifaado ayay noo tahay nafteena iyo nafta caruurteena maanta raggaas meesha yaala oo labada ilmood oo saqiirka ah midna wuxuu dhiganayay fasalka 6 midna wuxuu dhiganayay xanaanada waxa ay marayaan meesha caruurta loogu jecel yahay qurratu a'yun markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tilmaamay indhaha lagu qabowsada maanta meeshaas yaala raggaas meesha aan ka qaadno qoyskaas waa la itixaamay annagana waa la itixaamaya hooyada iyo aabaha Soomaaliyeed Ilaahay ugu dhawaada caruurta aad dhasheen xijaab uga dhiga sadaqada aad bixinaysaan Ilaahay dartiisa u caawinayna inma nudcimukum liwajhi Allah la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura cidi abaal kaga raadin mayno kaga dooni mayno inay nagu amaanaan Ilaahay dartiis ayaan u caawinayna marka sidaas si lamida waxaan leeyahay caruurta yararka ah oo qoyska danyarta ka soo jeeda oo midi kaga dhimatay labana sariirta ay saaran tahay hal loo boqo oo hal loo kaco oo caruurtiina kala ka soo qaada oo maanta caruurtaas kharashka ku bixi kara waxa leeyahay markaan dadka wareysanay Hindiya jooga dhuuxa laga bedelayaa shaqo badan baa laga qabanayaa waxa baxaya aabihi waxa baxaya hooyadii waxa baxaya labada cunug waxaan usna 4 qof weeye lacagta ku bixi karta waxaan isleenahay waa 100,000 haday ugu yaraato waxaan rabnaa 100,000 in caruurtaas loo aruuriyo oo loo garab istaago waxa ay ku nool yihiin magaalada Gaalkacyo telefoon waxa jira dad aan fiicnayn ay lambar furfurteen lambarka ka digtoonaada hooyada lambarku meeshu ku qoran yahay lambarkaas lacagta ha loogu diro